kusoo dhawow saaxiibayaal nolosha Luxembourg ee habeenkii waa qaybta ugu mashquul badan Hamilius dhexdeeda marka la joogo. Hamilius waxa ku taala caasimadda Luxembourg gudaheega fadhiyo oo music tumaya xilligan oo ka shaqaysanaya waliba lacag aad u badan soo xareynaya oo income ka sameyn kusoo dhawow saaxiibayaal nolosha Luxembourg ee habeenkii dabcan in badan ma YouTube ka maqnayn wadamada waxa soo gudbin doonaa muuqaal nolosha Luxembourg waa sidee habeenkii saaxiibayaal halkani waxa isku yimiday boqolaal iyo kumanaan qof oo u dabaaldegaya ama u sii diyaar garoobaya sanadka cusub iyo xafladaha Noelka loo yaqaano ee gibiyahan dadka Yurubiyaanka xusaan caawa saaxiibayaal muuqaal aad u qurux badan ma doontaan maadaama in badan YouTube ka maqnaa asxaab badan ay soo weydiisay YouTube ku soo laabo ugu dambeyn saaxiibayaal YouTube ku soo laabanay halka waxaad arkaysaan dad badan oo faamilya isugu yimiday soo kale meeshani waa mid kamida baaga ugu weyn Hamilius oo gudaha Luxembourg ku taala waliba caasimadda saaxiibayaal halkan waxa isku yimid xilliga samarka soo kale dad aad u fara badan xilliga winterkana soo kale aad buu camiran yahay dabcan halka waxa niga muuqdo saaxiibayaal decoration aad u qurux badan oo waxa weeye iyo farshaxan aad u wanaagsan oo lagu muujiyay caawa waxaynu boqon doqonaa suuqa Hamilius oo gabiyaha saaxiibayaal halkani aan ka fogeyn hadaba saaxiibayaal waxaynu soo gaadhnay qaybahan dabcan waa qaybta ugu mashquul badan Hamilius dhexdeeda marka la joogo Hamilius waxa ku taala caasimadda Luxembourg gudaheega faamilya lugeynaya horada soo socda yaani aan aragno dabcan meelahani too much decoration badan baa xilligan jira oo waxa weey si qurux badan loo diyaariyay decoration qurux badan la diyaariyay marka laga yimaado dadka faamilya xilligan lugeynaya waxa laga yaabaa sanadka dhan inay fasaxa noocan oo kale ay sugayeen oo si diyaar garoobeen si inuu ugu diyaar galowno ciidaha Ramadaanta ama waxa weey fasaxyada kale hadaba saaxiibayaal xagga u jeedaan dad waxa jira iyaguna wadooyinka fadhiyo oo music tumaya xilligan oo ka shaqaysanaya waliba lacag aad u badan soo xareynaya oo income ka sameynaya hadaba saaxiibayaal dabcan waxa sugi kar laayahay maalmaha kamid in giiga Soomaaliyeed shaqad noocan oo kala gaadho meeshan oo meesha ugu badan dalxiisayaasha soo dhaweysa waxa ka dhow baarlamaanka wadankani iyo soo kale waxa ka dhow saaxiibayaal guriga uu degan yahay boqorka magaalada ka degan yahay boqorka loo yaqaan qaanduka dadka soo socda waxa arkaynaa in meeshani dabcan ay u diyaarsan tahay xilligan dhamaadka sanadka soo kale saaxiibayaal waxa ku yaala meelaha markada lagu iibiyo ama waxyaabaha ugu qaalisan gibiyahanba ee dadka ganacsatada waxa weey ama dadka lacagta la isugu yimaadaan meelaha arkaysan saaxiibayaal waxa ku yaala shirkadda iPhone oo kale iyo shirkado kale oo caalamiya ayaa ku yaala Timberland baa ku yaala iyo qaar kale oo saaxiibayaal ka muuqda sida Norris oo kamida Norris Face shirkadaha waxa weey ugu casrisan ee dharka waqti xaadirkan laga xidho dad saaxiibayaal geedaha quruxda badan arkaysan ee xilligan san loo diyaariyay waxa weey xilliga ay ugu tala galeen Noelka ama Christmaska YouTube in badan ma ka maqnay saaxiibayaal laakiin marka ku soo laabano waxa soo gudbin doona muuqaal aad u qurux badan oo dhamaantii ka wada heli doontaan kanalka subscribe saartaad xalka loo soo share gareyso marka hore soo saaxiibayaal waxa arkaynaa dad badan oo xilligan wadooyinka Luxembourg caasimadda waliba qaybtan Hamilius buuxiyay dadkan waxay ku jiraan xilliga fasaxa laba usbuuc oo dambeysay sanadka waxaan u diyaar garoobayna saaxiibayaal xafladaha diimiyan ay xusaan iyo soo kale sanadka cusub soo dhaweyntiisa hadaba saaxiibayaal sanadkan cusub bal meesha ku xusayso adiga noo soo sheeg horaynu sii socon doonaa waxa soo gaadhnay meelaha lagu soo bandhigayo miisiga soo kale loo diyaariyay xafladaha habeenka Happy New Year-ka habeenkaas waxa isku imanaya kumanaan iyo boqolaal dad oo ku nool wadankaniya meelaha iga hor saaxiibayaal hadda cunto dhaqameed baa lagu cunayaa waqti xaadirkan kuwaas waxa weey gibiyaha dalkan caanka ah oo xilliga qaboobaha la cuno hadaba saaxiibayaal xilliga sanadka cusub la gaadho halka waxa isku soo bixi doona habeenkaasi haduu Rabbi aqbalo 2026 bilaamayo dad badan oo aad u fara badan oo ku dabaaldegi doona meelaha lagu tala galay dabcan in lagu soo bandhigo waxyaabaha miisiga ah meelahan oo kale waxa ku yaala sida Nataan oo kale iyo Rolex xarumahooga ugu waaweyn ma aaminsantahay saaxiibayaal haduu horaan u soo socono dabcan markaan meelahan aragno dharka lagu iibinayo waxay ka bilaabmaan ilaa iyo 1000 ilaa iyo wax ka badan saacadaha Rolex kan yaala laga yaabaa qaarkood in 20,000 30,000 50,000 70,000 ilaa 100,000 dollar gaariyaan soo kale saaxiibayaal halkan waxa ku yaala shirkadda La Costa oo ah iyaguna waxa weey shirkadaha ugu casrisan waqti xaadirkan Yurub dabcan suuqyadani saaxiibayaal xilliga way camiran yihiin
وانا ويكند maanta axad lagu jiro dabcan meelaha wajiga ku qaato waxa dareemaysaa sida u qurux badan tahay inaad hawo fresh hesho xilliga aad shaqada fasax ka tahay dabcan marka roo socon waxa kale saaxiibayaal in suuqan gabi ahaanba waxa way dad badan isugu yimaadaan xilligan oo boqolaal iyo kumanaan qof ah oo waxa way suuqan uu ciriiri badan dareemayo sanadkan nabaadkiisa bal magaalada ku xusi doonto saaxiibayaal la soo wadaag si anaguna u ogaano صاحب هذا كان لسه قاعد يجي بيهان بعا وقت قروح بدل ما نلا سوق قادتي gudaha Luxembourg weyn ku soo wareegnay meelo badan baad soo aragteen muuqaalada qurux badan ma inta sanadku aanu dhamaan dabcan soo gudbin doonaa subscribe channel-ka dhe asxaabtada kale soo share garay 1k waxa way like caaw inaad muuqaalkan gaarsiisan dabcan ayaan niga sugayaa u share garay qofka soo xaafadiina joogaya asxaabtaadaba si muuqaalkani uu hit u noqdo aniguna marka YouTube aan ugu soo laabto maadaama YouTube ka xidhiidh u dambeysay waxa way cilad iga haysatay oo ugu dambeyn xillidaas inaan xalino isku soo taray garayna insha Allah hadduu Rabbi aqbalo muuqaalkiina ka soo dhamaaday insha Allah sanad wanaagsan in rajina dhamaantiin saaxiibayaal sanad cusub oo wanaagsan 26 Ilaahay caafimaad inuu gaarsiiyo dhamaanteen sanad aad u qurux badanna Ilaahay dhamaanteen inooga dhigo iyo sanadada badan ee soo socda sanad waliba hoodiyo wuxuu hadima leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa wayna ka